dadka badan 10 ruux ayaa la keenay isbitaalka Madiina oo kamid ah isbitaalada martigeliya dadka waxyeeladu ay ka soo gaarto qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho sida ay xaqiijisay Duniya Cali Maxamed oo ah madaxa caafimaadka ee isbitaalka Madiina goobjoog ay u sheegtay in dadka badan 10 ruux la dhigay isbitaalkan oo dhaawacyo fudud iyo kuwa culus dad qaba isugu jira Duniya Cali Maxamed oo la hadlaysay goobjoogna waxa ay tiri tirada bukaanadana soo gaaray walow aan tiro sax ah hadda oo aan la cayimi karo aysan jirin intii goobjoog aad wada ahaydeen oo aan admission ku sameeynay iyo inta la celiyay marka la isku daro dhamaantood waa 12 dhaawacyadaas ma jirin dad dhimasho ah oo aan markii aragnay xaaladooda caafimaad hadda aad ay u ladan tahay waxa u maleynayaa inay laba qofood ay xaalad qabaan oo operation loo sameeyay sida qof dumar ah oo kale qaraxa ka dhacay meel aan ka fogeyn tiyaatarka oo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan militarigu ay joogaan oo ay gawaarida ku baaraan waxyeelada uu geystay marka la eego waa ay ka yar tahay qaraxyadii maalmihii dambe ka dhacay magaalada Muqdisho iyo waxyeelada ay geysanayeen Cali Aadan Muumin goobjoog TV Muqdisho